بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عاروسي ودينا موضوع عن كهاليني وها بارنتين ستايلس أما نوعية والدين تلاقي بيو مركا لغا فيرينا يو قابك الموضوع أوبر بارنيات وحان كسو هذا اللي حلقة دي كواد أفرت النوع والدين تلاقي بيو وحان سيقوني فافاهني نوع كواد marka qofkii aan xalaqada koowaad soo dhageysanin fadlan xalaqada soo dhageyso si xalaqaadka kale ay kugu soo ka xirmaan. xalaqadan waxaan kaga hadlaynaa nooca labaad oo loo yaqaano authoritarian parent waa alwaalid almutasallid aw alistibdaadi waa waalidka waxa uu ilmaha ka rabo oo maaragtay u arkay in u fiican yihiin qasab iyo maaragtay maquunis ku marsiiya. waa waalid ilmihiisa u dejiya ahdaaf sare asaga agtiisa la sarayso laakiin aanan ka fiirinin ahdaaftaasi ahdaaf ilmaha ka soo bixi karaan xaqiijin karaan awoodooda iyo da-dooda munaasibku ah ay samayn karaan aanan ka fiirinin keliya ka fiiriya in arrintaanu arrin fiican ay tahay arrintaan arrin ilmaha anfacaysa ay tahay oo isagan uu arko aqoon u leeyahay marka waa inay sameeyaan. haddii ay samayn waayaanna waa inay qasab ay diidaan waa inay qasab ku sameeyaan. waalidka wax sharaxaada lama socdaan hadafka uu yeerayo ilmihiisa ama wax uu ka dalbayo wuxuu leeyahay sameeya. marar badan waxaa dhacaysa hataa hadday su-aalka weydiiyaan inuu yihahdo anaa dhahay sameeya sidaas kumaan oran. haddii ay sameyn waayaan oo khalad u yimaado automatically warkiisa waxaa ku jira warkii aan ku dhahay say u sameyn weysay amarkayga maxaad ku diiday oo aysan ahayn ruuxii ficnaa maxaa u sameyn weysay wixii wanaagsanaa maxaa ula imaan weysay waxaan dhibka kuu ah maxaa u samaysay ma la socoto warkii aan ku dhahay maxaa u sameyn weysay amarkayga maxaad u jabisay baa u badan. waalidka wuxuu isku dayaa inuu ilmaha activity-ga noloshooda inuu controlo oo waxa ay sameynayaan iyo waxaysan sameynaynin inay acmaal mucayana sameeyaan waxyaalo mucayan aysan sameynin oo aada ugu controlo oo noloshooda dhan isaga gacantiisa ay ku jirto tafaasiisha xayatooda iyo wax alla waxay sameynayaan tasarrufaadkooda qof isagii dhan khadawaad mucayana oo xadidan lagu maamulayo ilmihii u noqdo. waalidkan markii ilmihii ay wixii laga rabay ay sameeyaan irtiyaax buu dareemay inuu aada ugu raaxaysto oo ugu niyad dego asagoo aanan ku baraarugin in arrintan ilmaha ay sameeyeen inaysan ahayn wax sifo u noqday waxay ka qanceen jeclaysteen ayagii ka yimid oo beri noloshooda ay sii wadi doonaan isaga ha jooga maysan joogin hala joogaan ama aysan la joogin kulli ay wax iyagu ka qanceen oo sifo u noqday aysan noqoneen. bal marar badan ay dhici karta in ixtiyaal iyo kaxiiladaysi iyo qaab mucayana oo maaragtay ay ku wadaan. waalidka wax discussion ma ogolo in arrinta uu soo jeediyo dood laga keeno oo su-aal laga weydiiyo oo ra'yi kale laga soo jeediyo ma ogolo. bal wuxuu u arkaa arrinta in laga doodo ama niqaash laga keeno ama wax layska yidhaahdo in ay yahay maaragtay wax bahdilida oo arrintii macno tirayo oo uu u baqayo arrintan in maaragtay in ilmaha in labalabac ka galaan. bal uu arkay inay tahay jiddiyada in arrintan maaragtay la socodsiiyo oo maaragtay xoog lagu marsiiyo ilmuhu ay sameeyaan beritana iyaga ayaa la qabsan doona xashi dambale ayuu u arkaa. waalidkaani ilmaha khalad markay sameeyaan buu jecel uu aad uga hadlaa marka negativeka positiveka iyo wax wanaagsan markay sameeyaan aada uma dul istaago isagoo ka fiirinayo in haddii wixii positive ama wax wanaaga ila yimaadeen hadwaaba sidii laga rabay oo qaacidada ah laa shukr calaa waajib waajibku waaba lagaa raba inaad samayso maxaaba lagaaga mahad celiyaaba wixii lagaa raba aad samaysay. laakiin markuu khalad yimaado inuu khaladka dul istaago uu ka hadlo uu maaragtay ku dhaleeciyo ku ciqaabo uu maaragtay kula qayliyo baa aada u badan oo marka wanaaga jirana uusan aada uga hadlayn. waxaa kaloo waalidkan uu aada u isticmaalaa waxa la yihahda physical punishment oo ah inuu jasadi ahaan ilmihii u ciqaabo ayaa aada ugu badan. waxaa dhacda marar badan in ilmaha arrimahan uu ka dalbaayo inay u arkaan wax isaga maslaxadiisa inay tahay oo isaga wax uu dan ugu jirto inay arrintaasi tahay inay u arkaan. sababtan waxaa keenaysa waxaan ugu hadlaayo inkastoo yihiin wax ilmaha u fiican oo maslaxadoodii ah oo iyagii dartooda iyagu ugu naseexeynayo laakiin maadaama ilmahan ay yaryihiin qofka ugu horeeya ay wax kaga baranayaan waalidkii uu yahay waalidkiina qaab soo bandhigistiisii ay noqotay qaabkan waxa ay u arkayaan inay tahay arrimo waalidkii isaga uu rabo isaga uu ka dalbana isaga uu ku raaxaysana maslaxadiisii ah marka intuu u jeedo inay sameeyaan oo aysan noqonin shay iyaga inta ka qanceen ama shay ay u arkaan ayaga in loogu danaynayo inaysan u arkin taasna hadhow noloshooda saameyn weyn ay ku yeelato mashaakil badan ay ka dhalato
waan gadaal kaga hadli doona. marka isu soo wada duub, waalidkan waa waalid ilmihiisa wax weyn la rabo, laakiin wixii uu la rabay qaabkaas ugu soo bandhigayo ah qasab ah oo aanan maaragtay su-aal iyo sharax waxba aanan ka furnayn. marka noocaas intaas aan uga bixinaa. xalaqaadka kale la socda haddii ilaah yiraahdo oo aan kaga hadli doono noocyada dambe ee noo dhiman, labada nooc noo hartay, iyo waxaan kaloo ka hadli doonaa saameynta ilmaha shakhsiyadooda ay ku yeelanayso. waan si fiican faahfaahin doona afarta noocba, nooc kasta saameynta shakhsiyadda ilmaha uu ku yeelanayo. waa mahadsantihiin.